السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaada asxaabta meel kastoo dunida ka joogtiin walaalkeeni Maxamed Ali Ahmed halkaan nagala socotiin waa Hasliye Media. Marka hore muuqaalkaani like saar dad fara badan u gaaro hadii nagu cusubtihiin subscribe noo saar aad iyo aad u mahadsantihiin. Marabtaa inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbiga ku dajiyo. Marabtaa inaad ku noolaatid nolol farxad leh. Waxaan rabaa inaan kula wadaago suurad haddii aad akhrisatid Ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbigaadii ku xasilan doono. Sidoo kale waxaad arki doontaa noloshaadii in wax badan iska bedeli doonaan. Waa haddii aad ku dadaashid akhrinta suuradaani waxa loo baahan yahay inaynu aad ugu dadaalno akhrinteedii. Waa suurad aad muhiim u ah Quraanka Kariimka. Qofkii ku dadaala mar waliba wuxuu ku noolaanayaa عزة iyo sharaf. Quraanka Kariimka waxa laga helayaa ajir aad u fara badan sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa noogu sheegay. Sidoo kale rasuulka sallallahu alayhi wa sallam meel fara badan ayuu uga hadlay muhiimadda iyo ajirka laga helo Quraanka Kariimka. Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri ma oranay alif laam mim waa hal xaraf balse rasuulku wuxuu yiri alifku waa xaraf laamku waa xaraf miimku waa xaraf. qofka markuu yiraahdo alif laam mim uu heli doona ajir aad u fara badan. waa fursad qaali ah loo baahan yahay qofka inuu ka faa'iideysto. Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofkii ka faa'iideysta quraankaani wuxuu gaarsiinayaa darajo aad u sareysa. suuradaani waxa la rabaa inaad aad ugu dadaashid Quraanka Kariimka dhammaantiisii akhrintiisii ku dadaal. suuradaani si khaas ah ugu dadaal. waxaad arki doontaa in noloshaadii ku imaan doono isbedel aad u weyn. suuradaani waa suurad aad u qiimo badan. qofku waxa la rabaa inuu aad ugu dadaalo akhrinteedii. Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu in badan ku baraarujiyay asxaabtiisii muhiimad ay leeyihiin suuradaha qaar. Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhaxyeelay fadliga dheeraadka ah. waxaa jira suurado qaar Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhaxyeelay fadli aad u weyn. suuradaani waxay ka mid tahay suuradahaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhaxyeelay fadliga gaarka ah. suuradaani waa suuratul Rahmaan. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إلا دماتك سورداني آت وقدد الأخرنتيدي. سورداني مرولي بوها كسو لابتا آيات أرانيسا فبأي آلاء ربكما تكذبان. إلهي آياتاني وهو نغو حسوسنيا إن آن بينن وحيابها أون أمري ولا ليان آت أي مهم تهي إنو كدد سورداني وسورد آت غاليوا لوغ باهنيهي قفك إنو كدد إلهي سبحانه وتعالى وهو يري ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر إلهي وحا كحسل قلبك هذه هدي أتربتت إنو كحسل مسكح هذه إنو كحسشو إن رش هذه آدن درامن وحبوقة وحا للربا إن آت قدداشت سورداني هدي أجوكتيست آخرنت سورداني نرش هذه وحبوقة dib dambe isma arki doontiin. waa haddii aad joogtaysid akhrinteedii Ilaahay subhanahu wa ta'ala aad tala saaratid. sidoo kale aad aamintid suuradaani haddii ba aadan aaminsanayn wax isbedel ah oo kugu sameynaysa haba yaraatee ma jirto. balse haddii aad aaminsan tahay suuradaani sidoo kale aad aaminsan tahay inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ajir fara badan kugu siin doono waxaad heli doontaa isbedel aan halkaan laga soo koobi karin. walaalayaal waxaan isku boorinaynaa inaynu aad ugu dadaalno akhrinta Quraanka Kariimka. Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa waxa laga helaa faa'iidooyin aad u fara badan. qofka hadduu rabo inuu ku noolaado cizo iyo sharaf waxa laga rabaa inuu aad ugu dadaalo akhrinta Quraanka Kariimka. haddii aad joogtaysid akhrinta Quraanka Kariimka sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo sheegay waxaad ku noolaanaysaa nolol cizo iyo sharaf ah. sidoo kale maalinta qiyaamo haddii aad ku dadaashid maanta Quraanka akhrintiisii aad joogtaysid akhrinta Quraanka Kariimka maalinta qiyaamo marka la tago Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayuu shafaaco ku weydiinayaa. wuxuu ku leeyahay ninkani aad ayuu igu dadaali jiray markii la joogay adduunka. ilaahow ninkan oo banaanka joogo aniga maanta kama tagay asaga ayaa ku shafaaco qaaday. qofkii ku dadaali jiray akhrinta Quraanka Kariimka waxa la leeyahay jannada albaabkeeda istaag akhri Quraanka Kariimka adiga oo socda waxaad u akhrinaysaa aayad macnaha kala bibix ayaa la leeyahay qofka. warattilil qur'aana tartiil. waa dareemi kartiin qofkii la yiraahdo jannada albaabkeeda istaag kore u soco quraankaadii akhri laga soo bilaabo suuratul Faatiha ilaa suuratul Naas halkee ayuu gaari karaa. waa su'aal loo baahan yahay inaan isweydiino.
walaalayaal aan ka faa'iidaysano suuradaani sidoo kale aan ku dadaalno akhrinta quraanka kariimka haddii aan ku dadaalno fursadaani aad qaaligu ah waxaan ku noolaanaynaa cizo iyo sharaf walaalayaal waxaan rajaynayaa muuqaalkaani inaad ka faa'iideen muuqaalkaani like saara sidad fara badan u gaaro haddii anagu asabtihiina subscribe noo saara aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin intaan muuqaaliga aan ku kulmi doono sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu